صح حومان هنا مسكين قال ساقط السيف إلهي وقرقار ولا مسكين كيف نسو دعي ولا مسألة إلهي تحان كي نوفر ديدينا كم ساعة قصير مسكين كان أنا يجيبان مربعين العقد النصيب أروح أصلص على أنا قاس سرا مقالة قبضة بوك رافنا أنا قاس ال صاحب أنت حقول عني قاري سيدو داي ال برقاي رو وأنا نحبي سيدو دا قاري وصاحب سودين أدقها وكسي مقالي غيرين ما تحوق وكحيبات أيها كبغيسا وارسد كان يوم مقالي إنك أنا معد بين نجح تسين طونين ووضي ناسين طونين وحفرنا وليبا سوق الدحي السين وهابريق ساوي شيرنا ما تنيو وما ترى عارك وهاي تشوفنيو قالي وين برتها قلوا وضع بقول يستيتك واحد كسرنا ما وتضو شامة هيا أم بتص صاحب شوني وديك بتو شو بورا كتير سعيد سما سو بابا صاحب ما نبغى ساسي مقالي اللي قالي قاري صدق تو صاحب أنا كوتش داري أنا بري بحسن أنا بري
taliya shilku wuxuu dhacay 6 subaxnimo abaar 6 subaxnimo waxa la jiray ninkan miskiinka ah ee indhoolaha curyaanka ah waxa sidoo kale waxaan nagu soo wargeliyay waxaanu nimid goobtii shilku ka dhacay waxaanu weydiinay dadkii goobta joogay ee ka dhawaa waxay noo sheegeen inuu jiray nin gaari xawaare aad u sareeya oo qeyr mas'uul inuu jiray ninka waanu baadhnay wax cadayna waanu weynay ninkii waa kan waxaan goyn doonaa maxay dhakhtarka weyn ee qolka miidka ams taliya markaa warbixintu saasay u socotaa baaritaankiina weli waan wadnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كداود أنا جلست على تلفزيون كعالمي جاف 26 تي في waxaan ku suganahay xarunta dhexe booliska ciidamada Jamhuuriyadda Dalka Soomaaliya waxaana ka socday shir albaabada xubnaha saxaafaduna banaan ka tahay hadaba daawadeel waxaan wada ku soo noqon doonaa goorta uu ka dhamaado shirkani bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh taariikhdu waa 25 bishii koowaad 2020 waxaa shir toos nooga socda taliska guud ee ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa shirka gudoominaya taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliya taliya ficilka iyo saraakiisha ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan shirkiga jiray daaranaynaa inaan isugu nimid inaan ka hadalno midkii ka dhacay biloodka hor magaalada Hargeysa 17 bishii 9 2019 sagaalkii iyo markii aragno cabaaradiinkaas markii uu ka dhacay degmada Ibrahim Korbur waxa amar lagu bixiyay ciidamada booliska amar lagu bixiyay inay dhacdada ka falgalaan oo ay tagaan goobtii ka dhacay dilkaasi ciidamada booliska way tageen isla markaana waxa deegan waayeen kadib waxa howlgal ciidanku ay galeen oo ay bilaabeen ilaa ay ku daba jiraan inay soo qabtaan dhammaan dambiilayaashii waxa howlgalka nagu gacan siiyay oo nagu motiveeyay waa taliyaha ciidanka booliska iyo saraakiisha ciidamada booliska iyo dhammaan shacabkayga oo aad u jecel nabadda taasina waxay ku tusaa xiriir ka dhexeeya saraakiisha ciidamada booliska iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan tani waxa sheegtay waqtiga dilku dhacay saarta markii subaxnimo markii dilku dhacay waqti intee la kadib baad tagtay meesha aad baad ma tahay dilku markuu dhacay isla cabaar markii waxaan la hadalay taliska saldhigga Ibrahim Korbur oo ku dhawaa xarunta goobta ka dhacday ama dilku ka dhacay ama yani xarunta degmada laga maamulo booliis ahaan marka iyaga wargelinay iyagana isla markii waxaan sayay aad u maadreynaa taliyaha dalka joogay xasan cabdi taliya waxaa inoo sheegteen markaad goobta tagteen inaad wax caddayn weydin haddana waxaad noo sheegaysaa inaad caddayn hesheen markaas sidee bay isku waafaqsan aad baad mahadsan tahay markii aan goobta gaadhay waan weynay wax caddayn ma ciddii geystay dilka isla markaana baaris aad u xoog badan oo galay 3 bilood ka bacdi waxaan ogaanay inaan 14 jir oo sii tagayay iskuulka isla markaana wadada marayay inuu noo sheegay ama uu qoray ribagarey taariikhda gaariga nambarka oo aan helay iyo xogtii aan soo helay gaariga nooca weeka ayaa naga caawisay inaan helno caddaynta inay dadkii geysay ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء الله حوينا تاريخ وشيء لما تنتهي بشيء كوبات لابد كني لما تنكه ومعلين سبتيا وسجالك يبرك أرنيمه وحنقول كرني أما شركة نوقف فرمي تلسك جود عندما شنقول السوماليان وحشركة شنقول دوميني تليها جود عندما شنقول السوماليان تليه إيانك إسرائيل شكل دون إليها تلسك جود عندما شنقول السوماليان وحنو شركة شرعت كل فجرني أمان وسلوا ذاقني حاجة كوسابسن تلك دعي مجالات هرجيسة كران نجمة إبراهيم خضر شركة أو دعي لح بلاد كار شيء طبعا كي بيشي سجالات لبضة كنيا سجالات طبعا كل بيت طبعا كي يبركي أرودمو بركي دعاء نقول جري وحارس توصل ولا حريني سلقي كدواء نجمة سلقي إبراهيم خضر
taliyihii meeshaa joogay xasan cabdi ayaan la hadalnay waxaanu si toos uga howlgalay hawsha isla markii uu goobtaa gaadhay waa uu ka waayay wax caddeemaa 3 bilood ka bacdi baaritaano adag iyo caddeemo aanu helnay waxaanu ogaanay inay 2 nin ay yihiin 2 nin dilkaa geystay isla markaana baxsaday cabaar 3 bilood ka bacdi 6 bilood ka bacdi baa dilka laga joogaa iminka taliyaha guud ee ciidamada biliiska Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ka amray 24 saacadood gudahood lagu soo qabto lana hor keeno xeer ilaalinta iyo maxkamadda u leh xaqa magacaanteeda sanaashu waxa weeyaan Cabdifataax Xuseen Axmed iyo Ibraahim Cabdi Geedi oo ku kacay fal dil iyagoo jirsiyay gaari si ula kaca muwaadin kamid ah muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland cadeymaha iyo waxyaabaha iyo saanu ka helnayna kolley private cadeymaha qaabka loo baadhay investigations waa private marka waan la wadaagi doonaa wixii kale inta ka soo baxa iyo qaabka loo soo qabto insha Allah dhammaantiin kaasilinta afayeenka ciidanka booliska kaas oo noo sheegay in dalkii ka dambeeyay falkan lagu soo qaban doono muddo 24 saacadood Cabdifataax sida la socoto ganacsigeenu aad iyo aad u sareeyo hadda waxaan jeclaan lahayn inaan hore u marino marka sidaad ogeyd dhankan waxa naga xiga beero fara badan oo dhowr kun oo hektar ah marka mustaqbalka markaan eegayno waxa laga dhisi karayaa hoteelo waaweyn oo 5 star ah marka sidee kula tahay haddii aan hoteelo intaan gelin shacabka fi gelino hoteelo 5 star laga dhiso oo aynu sanadkii ka faa'iidno 1.3 billion dollars arrinkaas waa sax weeyaan haweeney inagu waxaan u soconaa kulay waa faa'iido haddii aynu faa'iido ka helino dhowrka qof ee degan beeraha oo inaad lacag siisaa oo aad beeraha ka saartaa oo dhulka inaga inoo xoraysa xagga dawladana iigu dah anigaa soo sharciyeynaya dhulkaas sidaas isku hawl fiican baad qabatay adiga waa inaan bulshada ku kordhiyo boos waxaa jira qoladii booliska imika fara badan bay nagu hayaan waxaad moodaa inay diiradda imika saareen marka aad iyo aad bay inoo waarsanayaan ciidankeenu hawl buu qaban kari laayahay kuwaas sheegaysa midna nagama qaadi karaan askari maanta maxaa soo doontay oo soo dheeraatay waxaan ku wadaa waaran qabashaa ayaan ku wadaa waa muxuu ka hadlayaa bal hooyo eeg waaye boos kan waxa uu ka hadlayaa boos dil sano hore dhacay oo maaran maxkamadda ka socda weeyaan dilkan sanadka hore dhacay inaga maxay naga khuseeya ma garanayno boos ninkan weydii waxaa idin hore idin sheegaya inaad si sharaf leh sharciga isugu dhigtaan dhammaantiinba maanta muxuu yidhi inaad si sharci leh isku soo dhiibtaan waar mashilimaadkii yareen ku tuuraynay ayaa kaaga daray oo maanta anaga nagu soo rogaal celisay oo shilimaantii yareen ku duurinay baa ku danay u soo sar qasnada oo qasnada waxa lacag u baahan tahay kala bax buuqana nagala tag wariyaa mar dambe sidaas oo kala hayla hadin nin wadankiisa iibsanaya meehi waxaan mar labaad idin sheegaya inaad si sharaf leh isku dhigtaan sharciga waxaan idin sheegayaa talaabo sharciga waafaqsan in laga qaadi doono hadii kale Soomaalida hore waxay ugu maahmaahdaa maska dhaqataa mar buu ku cunaa aadna naga soo afjir wariyaa askarta bool waxaan joogaa moolka isku day wariyaa ina xabada gurida isku day wariyaa isku هذا شو قالوا؟ أنا وعلي عسكري مول كاتشوجا هذا شو قالوا؟ هذا شو قالوا؟ boss ninkii security kan arkaya ya u dhameeyay isagana ku dhufo
وين صور صاحب بوس لبدين ودنتي ما حكى كد علي مركا حسنا بوس صدكين لبدين وجهها صدكين فك رصاصته إني قدمت وأنا قعدت كيش قيس قعدت صدقه Ooh.
kashaydu leeyahe gurbiyo hawluma ogoli jacaylkan soo kobciyey markuu yahay kaalin qaad wale kobna ugama guuro kenada sahal ugama buubo axdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxan calmaday sinabaygama kaxeeyo kibirku ruuxan alla ruuxan calmaday sinabaygama kaxeeyo jacaylkan soo kobciyey markuu yahay kaalin qaad wale kobna ugama guuro kenada sahal ugama buubo axdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxan calmaday sinabaygama kaxeeyo kibirku ruuxan alla ruuxan calmaday sinabaygama kaxeeyo wale weer laga kiciyo kalaam xuni igama yeel kaftanka ruux kuma canaa naftaydan kara aqoon kurbana ruux lama jecliba wale weer laga kiciyo